gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo ku sugan degmada Qoryooley ayaa waxa uu booqday qoysas ay dhawaan qasaaro ka soo gaadhay madaafiic ay isweydaarsadeen ciidamada Amisom iyo waliba xarakada Al-Shabaab. wariyahayaga Cabdiwali online ayaa faahfaahinta warkaas inoo soo diray. gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo maalmahan ku sugan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa booqday qoysas dhawaan eheladooda qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaareen madaafiic xoogan oo magaaladaas ay isku weydaarsadeen ciidamada Amisom iyo Al-Shabaab kadib weerar xoogan oo Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidanka dawladda iyo Amisom ay ku leeyihiin degmada Qoryooley. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ka wakiil ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa lacag gaarsiiyay dhibanayaasha qoysaskaas waxaana arinka maamulka gobolka uga mahad celiyay gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali. xaqiiqdii saakay wuxuu ka qayb qaatay arin aad noo taabatay gudoomiyaha dadkaasi oo masaakiinta ah dhammaan guryahoodii xabad ayuu ugu tagay waanu taasiyay hawsha uu saakay qabteen gudoomiyaha waxaan leenahay ilaahay ajir iyo sanad Allah ka siiyo sadaqa jaariya baxsatay waxaad matalaysaa dhammaan bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Hoose waxaan ku leeyahay gudoomiye aad u mahadsantahay. Ibrahim Aadan Cali Najax gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in maamulkiisu marnaba ka daalaynin caawinta dadka iyo ka warqabkooda. anaga ka maamul ahaan waxaan naga go'an in nidaamka dawliga ah iyo sharafta Soomaaliyeed intaba iyo astaanteeda inaan gaarsiino meel walba oo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose kama caajisayno waqtigeena habeenii maalin waxaan gelin doonaa inay guuleystaan dadka Soomaaliyeed dadka reer Koonfur Galbeed iyo shacabka ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed dhammaantiinana aad iyo aad u mahadsantihiin waan idin wada tacsiyeenayaa dadkii aan soo arkay maamooyinka ahaa ee aan duugta kala soo qayb qaadanay maantana inta ka dhimatay sabir iyo iimaan Allah siiyo diinteena way jiri doontaa dadka Soomaaliyeedna muslimiin ay ahaan doonaan weligoodana way soo ahaayeen dalkoodii dadkoodii diintoodana way difaaci doonaan haddii Allah. Cabdiwali Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose. aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwali Ali online oo halkaas inooga soo waramayay gobolka Shabeellaha Hoose.